kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal waxaan ku suganahay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika xaafadda ay Soomaalida u badan tahay Mayfair warbixintayda maanta way ka duwan tahay warbixinadii hore inta badan waxaad iga barateen inaan idin soo tabiyo dhacdooyinka ka dhaca location-ka ama remote area-ga meelaha Soomaalida ay yiraahdeen dhalinyarada Soomaaliyeed lagu dhibaateeyo oo lagu boobo hantidooda mararka qaarna lagu dilo balse maanta way ka duwan tahay oo waxaan ku eegayaa in qaabka ay wax u bartaan ardayda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koonfur Afrika waxaan hadda hor taaganahay waa iskoolka ama dugsiga hoose dhexe ee Mayfair Academy dugsigan ayaa loogu magac daray xaafadda Soomaalida ee degan tahay ee la yiraahdo Mayfair Academy waxaa dhigato dhalinyaro aad u tiro badan ama arday aad u tiro badan waa dugsi hoose iyo waliba mid sare gudaha ayaan u sii gali doonaa waxaana aan eegi doonaa qaabkay dhalinyarada wax u bartaan maamulayaasha ayaan warbixin sidoo kaleetana aan idinkaga soo diyaarin doonaa ardaydana sidoo kaleeta waan idin maqashiin doonaa haddii uu rabbi raali ka noqdo daawasho wacan saaxiibayaal Mr. Principal, how are you? Nice to meet you. How are you doing? How are you, sir? How are you? I am good. How are you? Okay, thank you. Okay, Principal. Nice to meet you. My name is Abdul Rashid Hussein, a correspondent from one of the TVs that is based in Somalia, Mogadishu. Nice to be with you today. Thank you. Thank you, sir. You're welcome, Mr. Yazika. Principal High School. Of the high school. How are you, sir? How are you? My name is Mem Torin. I'm principal for primary school. That ranges from grade RR up to grade 6. So we are the ones who are doing the foundation of the school. Of the school. Yes. Thank you. Actually, we're gonna talk more in your office, and I think we can process on to the parent assembly. Thank you so much, sir. Good morning, boys and girls. How are you this morning? I am fine. Today is a beautiful Monday. Everyone is happy. Shall we be quiet at the assembly? Okay, at this moment, let me ask Abdisalam to lead us in prayer. Over to you, Abdisalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أصبحنا Afrika manuparadisu fondolwayo Israeli tangazo letu kosi silalela tina musapolwayo In these rooms and on the playing fields. We will fit ourselves for the future. Let us not throw away these precious years. But gain from them all we can. Let peace dwell here. Let the rooms be full of contentment. Let love abide here. Love of God. Love of one another. Love of mankind. And love of life itself. Let us remember that a school is not a building, but gatherings of minds and hearts, and a place of friendly guidance and help. As it takes many hands to build a house, it takes many hearts to make a school. Thank you. Maps are really amazing things. They tell you where to go. They lead you across the country from Vancouver to Timbuktu. They tell you what the land is like, whether it's high or low. They tell you where it's very dry and where the water flows. Maps tells about the city, the street, the road they show. They guide you home on the wintry nights so you won't get lost in the snow. Maps are really amazing things, but the very best one shows that where pirates used to hide their silver chest long ago in the treasure chest long ago. Thank you.
Thank you. A series of choices, she said. Pass to works and roads to take. We passed the brook where my ideals lay, cooling beneath the stream, and indecision turned over like an engine in my mind. It is hard to start a new chapter when you don't have a story to write and the words won't come as if scared or shy of the fate. So I stand at the crossroad, conscious ticking over. I wanted then to wind down my eyes and let the breeze flow into me, freshening anew like a breeze whispering through leaves. So I stand here idly lost and confused at the path I should take until you appear like a map. Thank you. Just like Mem Doreen and Mem Shido has said, we are in the season of exams. The year is ending. We want to test whatever you have understood from the first term until the last term of the year. So the grade 12s are writing their final exam, as well as the grade 4 to 11. They are also writing their final exam. We'll be testing whatever you did throughout the year. ardayda ayaa hadda waxay ku jiraan sidaad arkaysaanba faylal dhaadheer waxayna kala xog qaadanayaan macallimiintooda waxay ku bilaabeen duco maadaama ay tahay subax xilligan ka dambana waxay u dareerayaan fasalada waxay ku bilaabeen duco kadibna waxay ku xijiyeen heesta caalanka daawadayaal waxaan hadda la joogaa maamulaha iskoolka Mayfair Academy ee magaalada Johannesburg xaafadda Soomaalida ee Mayfair sida horaan in kugu sheegayba iskoolkan ayaa waxa loogu magac daray xaafadda Soomaalida ee ka degan tahay Mayfair magaalada Johannesburg maamul soo dhawow bal inooga waran sideed ku bilowdeen inaad asaastaan iskoolkan ay maanta Soomaali gacanta ku hayso arday badan oo Soomaali ay dhiganayso sideen kugu suurta gashay goormeedna bilowdeen bismillaahir rahmaanir rahiim walaal waa maasanta marka hore الله ما هذا سكله أنت نصوب قطعي أدمن كوم هالعلننا سكول كميفير أكاديمي وقت كان حاضر كحاضر كتاستقال بقول وعنك بقول كبس سيدتنا الشام والصومالي انت كلنا و تتكلم أجانبه ودمنا كاي ما ذيها حق لو دكتور دد لوكله أو ساوث أفريقيا مدوجة أي هندي مركا iskuulka haddaan dib ugu noqdo iskuulka waxaa la asaasay sanadkii 2006 wuxuu ku asaasmay khaasatan madrasa ahaan ilaa uu soo jiitamo laakiin ogolaanshaha ma artay xagga wasaaradda tacliinta ee South Africa waxaan ka helnay sanadkii markuu ahaa 2018 ayaan ogolaanshaha ka helnay oo registrationka xagga iskuulnimo aan ka helnay ilaa waqtigan saas ba ma artay qayb oga nahay wasaaradda tacliinta ee wadankan South Africa ardayda u dhalatay dalka Koonfur Afrika ee dhigata iskuulada internationalka ama laga leeyahay dalka Koonfur Afrika iyo ardaydan Soomaalida maxay ku kala duwan yihiin waqti xadirka duwan gelsantihiin oo hoos imaanaysaan wasaaradda arrimaha wasaaradda waxbarashada walaal saan horaan kugu sheego iskuulka waxaan register garay 2018kii on ka helnay ma artay shahaadada ma artay كم نقاشها سكولة ده رجستا كريسان from مركز الحمد لله سنة كلا بده كونه إلا باتنك إلا بدي يا فصل كان أوكو بعد فصل كلا ده ماتريك فصل كلا بتمناد اللغة الإنجليزية اللغة ده ما سكول كا هاي سكول كا يعني كقريب كان لي نتيجة في عمان كهلي لكن زي سنة كلا أنصار دفنا إلا بده كونه إلا باتنك سيد هذا يعني ريكورد جبني تاسو مارت إلهي نجو جوليسي inaan ka hormarno iskuulo fara badan oo qarniyo ka hor jireen sida iskuulada maartay dawladaha Turkiga oo la dhaho Nizamiya sida iskuul JMS la dhaho aan kaalinta koowaad ka galnay oo aad martaa wasaaradda tacliinta nagu soo dhaweysay oo ka helnay ma aad tixgelin iyo ma artay amaan dheer marka iskuulka waa iskuul registration dawladana aad maartay noo ogtahay oo noo suurtagelisay inaan ma artay aad naloo sii ogaado natiijadii sanadka la soo dhaafay ee fasalka leebtamada inay maadeen ilmaha ardayda kaalinta koowaad ee wadanka ka galeen okay waan soo dhaxmaray iskoolkan soo dhaxmaray waxaad haystaa dhul aad u balaaran dhulka ma idinkaas kale oo dawladda ma idin sharciyeysay qaab sidee aad ku hesheen walaal marka hore aad iyo aad baan cariir ugu jirnay wixii ka horeeyay sanadka 2000 الحمد لله سكول كان دولة باسكله لكن وانا لسيي
ilaa iyo waqtiga aan rabno yaa maartay yaan haysanaa waxaan haysanaa contract ama memorandum of understanding 30 sano yaa nool yaa dhintay marka dhulku waa dhul dawladeed laakiin de waa aragtaa meesha Soomaaliya ma ku magacaaban tahay wixii hadda maartay anagu ma iska leh aan dhihi karaa iskuulka iyo dhulkaba dawladda garab ma idin ku siisaa waxbarashada hadda maartay markaas socotay waa arkaysay maartay baabuur soo galayso dad maartay soo socdo imtixaankii 12 fasalkii 12 lagu jiraa facilitationka iyo maartay abaabulka imtixaanada ayada maartay gacan naga siisaa iskuulka waa iskuul dawladda u register gareysan gacan bay naga siisaa xagga waxbarashada xagga trainingka marka habeenii maalin weyna dhex taaganta dawladda ayadana arrimahan maartay xagga educationka nala wada ardaydii ka qalin jabisay dugsiga sare ee Mayfi Academy heer jaamacadeed iyo waxyaabo sida amasiyaada alxamdulillah waa sax waa khaasatan last year kuwii kaalmaha koowaad ka galeen wadanka waxaa kamid ah gabar aniga dhalay gabiya wax la jirta ardayda iska yar aad iyo aad baa culays ugu maada xagga markii fasalkii 12aad daal culays waxbarasho ku imaata marka barkood baa iska jeclaadaan inay hal sano oo maartay nasi qaataan gabadheedo kale oo kamid ah fasalkii last year next year waxa soo bixin jaamacado badan kamid ah VETS UJ iyo Pretoria University marka kuwii ka sii horeeyay jaamacado digtaan kuwa private digtaan iyo kuwa maartay dawladda digtaan jaamacadaha dawladda ilmihi inta ka baxeen jaamacadooyin way aadeen alxamdulillah ardayda markaad wax baraysaan ardayda Soomaaliyeed inta badan waxa bataan ilmo lagu dhalay dalka Koonfur Afrika af Soomaaligu dhibayo af Soomaaliga ma ka caawisaan misana Ingiriiska iyo dalka uma la jaan qaadeen wala soo xoogto wadanka South Africa wax lagu barto waa luqadda Ingiriiska waxa soo raaco waa luqadda idahan Afrikaanska haddii taas laga soo tago waxaa jirta luqadooyin sida maartay luqadda Zuluga oo kamid ah maadooyinka la dhigo laakiin ka Soomaali ahaan anaka luqadda Soomaaliya diiwaanka kuma jirto luqadaha lagu baran karo iskuulada insha Allah waan gaari doonaa ilmaha Soomaalida waxay ku xiran tahay xaafadaha sida Soomaali looga hadlo iyo waalidka dadaalkiisa alxamdulillah ilmaha badi luqadooda af Soomaaliga aad bay uga dhasiin adoo waa soo dhaxmartay waxaana ka qaadatay warar marka waxaan filayaa laftaada inaad aragtay in weli luqadii Soomaaliga ay jirto maartay waalidiintan aad iyo aad dadaal u geliyeen in ardaydii ama ilmahoodii luqadoodii hooyo ay ka tagin oo weli af Soomaaliga welina ku hadlayaan okay waalidiinteena ama waalidiinta Soomaaliyeed dhanka waxbarashada waxaad u maraysaa dadkeenii hore inay waxbarashada ku fiicneen ama qaarkood intooda badan ay wax soo baranin wadan qurbaa la joogaa dadka de nolol bay fiijisadaan oo maaragtay qof walba nolol ay dhinac u ceyrsada idinkana ardaydii baad tarbiyeysaan oo waxbarashadii baad gacanta ku haysaan marka carqalada ma kala kulantaan sida ama waalidiinta dhankooda sida marka ay jirto parent day waalidiinta miyay idin caawiyaan ma idin imaadaan sida tartaan misana waxaa jiro dhibaatooyin dhankaas idinka haysto wala horta mid waa inaan xuso aan ka tagay iskuul kalima wuxuu leeyahay madrasada ka kooban maktab taxfiid markii madrasada laga baxana waxaa la aadaa culuum oo cunugu quraanka dhameeyo marka iskuulka kalima galabtii waxaa soo galaan qayb madaaris qayb far iyo qayb culuum oo dad weyn oo culuum sharciya iyo maadooyin maartay siirada iyo qawaacid la baro marka alxamdulillah adan dib ugu noqday su'aasha ay weydiisay waa fahansantahay waalidka qurbaha joogo sida qaasatan South Africa ummadda waxay u baahan tahay waa dad garab rarata oo noloshooda maalmeed daba ordayaan waan u garaabsanahay waa runo waalidka hal maalin baa loo baahan yahay walow aan sidaan ka filayn aan ka helin laakiin waan u garaabsanahay waa waalid rooti raadinaya waa waalid waxbarashadii iyo fiiskii raadinaya waa waalid nolol maalmeedka raadinaya laakiin alxamdulillah markaan u baahano adiga 70% waan helnaa waalidka Soomaalida ilmahoodana aad bay uga warhayaan
aad u mahadsan tahay waana kaaga هذا مدن شكرا جزاك الله بالله magacaygu waa Jeel Nuur waxaan ahay tababaraha Mayfi Academy FC waxaan tababaraa Mayfi Academy kubadda cagta qaybta kubadda cagta waxaan sidoo kale ku soo darnay maalmahan da'yarta waxa ka hooseeyo under 17 sida 15 iyo 12 iyo 14 kuwaasoo insha Allah subhanahu wa ta'ala u bilaaban doonaan liiga cusub oo hadda bilaabanayo seasonkan da'yartaas waxaan ku boorinayaa insha Allah waalidiinta waxaan ku boorinayaa da'yartaas inay igala garab qabtaan si ay waqtigooda u ilaaliyaan waqtiga madrasada kadib ayaan waxaan rabnaa training inaan bilaabno waana bilaabnay already hal usbuuc aan train gareynaynay caruurtaas liigaan ay ku jiraan under 17 sidoo kale ayana liigooda seasonka kale u bilaabanaya waxyaabo badan ay inoo qabsoomaya xagga kubadda cagta Mayfiya waxaan rabaa waalidiinay madrasada kadib caruurta inaad noo soo dirtaan insha Allah aanad nagula ilaalisaan aanad nagula xisaabtataan insha Allah aan hadda hor taaganahay ee fasalka 11aad ee runaantii waxaan sidoo kale aadi doonaa fasalada dugsiyada hoose iyo waliba sidoo kale fasalada dugsiyada sarsare waxaan wax ka weydiin doonaa ardayda maadooyinka ay bartaan iyo qaabka ay wax u bartaan daawasho wacan saaxiibayaal Yes, sir. Say how are you, sir? Good. Are you okay? Thank you. Nice to meet you too. This is grade 11. Grade 11, eh? Okay. inuu iskuulka inay Soomaali kala dhigato waa neeshimo badan oo isku imaadeen waxaa jira arday ka imaatay Malawi arday Zimbabwe ka imaatay arday jinsiyadda India dadka halkan ku dhashay Indiga dad waxaa jooga Ethiopian Oromo iyo Amharo oo ka soo jeedaan Ethiopia laakiin halkan ku dhasheen marka iskuulka waa runo Soomaali bay ku magacaaban tahay oo boqolkiiba 80 Soomaali u badan yihiin laakiin waxa nagu jiraan neeshamo kale marka fasalkan waa fasalkii 11aad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وزكريا محمد فصل كويت بنضع دكتور ميفا كده Okay, Zakaria, imsaan ma taad dhigata? واحد دكتور سديد مادو maado maxay kaliin? waxay kaliin geography maths English Afrikaans and tourism yo Okay, maadada u jeceshahay? waxaa ugu jeclay business studies u jeceshahay? Okay, waxaa tahay fasalka 11aad ee sanadka xiga waxaad noqonaysaa fasalka 12aad soma? Okay, mustaqbalka maxaa rajaynaysaa inaad noqoto? إن شاء الله waxaan rabaa inaan noqdo businessman aan noqoto ganacsata noqdo jeceshahay? إن شاء الله dalkaaga hooyo ee Soomaaliya wali ma tagtay? waa tagay maratay haye inaad ku laabato ma rajaynaysaa ama markaad waxbarashada dhamaysataa ku laabato? إن شاء الله markaa waxbarashada dhameeyo inaan ku laabto Okay, aad ma soo Zakaria. Jazakallah. Your name, your grade and your school? Assalamu alaikum. My name is Fazila Abbasi. I learn in Mayfair Academy, doing grade 11, next year's grade 12 learner. I'm doing pure maths, English, Zulu, life science, physical science, life orientation, tourism. Okay, what's your favorite subject? Pure maths. Pure maths. Yes, in Zulu. In the future or your career, what do you want to be? I want to take engineering. Engineering? Yes. Okay, wish you success in your life, okay? Yes, thank you. Thank you. magacayga waxaa waye ubax waxaa ku jira fasalka 8aad iskuulka magaciisa waxaa waye Mayfi Academy maadooyinka barto waxaa waye math iyo maths English social science natural science iyo English adiga maadada u jeceshahay maadada u jeceshahay English ka u jeceshahay mustaqbalka markaad weynaato maxaa jeceshahay inaad noqoto waxaan noqon rabaa pilots duuliye maxay tahay sababta aad pilot u dooratay because waxaa jeclahay inaan cirka inaad hawada gashaa jeceshahay hawada inaan galo okay aad u mahadsantahay halkani waa fasalka 8aad ee iskoolka Mayfair Academy waxaan dhex fadhiyaa sidaad arkaysaanba ardayda waxaana wax ka wareysan doonaa mid kamid ah ardayda magacaaga maxamed fasalka tahay grade 8 tahay imisa maadad barataa toddoba maadad barataa maadada ugu jeceshahay English ka ugu jeceshahay okay maxamed mustaqbalka maxaad jeceshahay inaad noqoto wadankaaga hooyo gormee ugu dambeysay ma aadin wali ma aadin ma jeceshahay inaad aado insha Allah gormee jeceshahay inaad aado marka iskoolka dhammaysto sanadka markuu dhamaato okay aad u mahadsantahay
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Sit down. halkan waa fasalka saddexaad Mayfair Academy fasalka saddexaad laba fasal baan leenahay A iyo B baa la kala yiraahdaa grade 3A iyo grade 3B. Ma'am, which grade is this? Grade 3B. Grade 3B. ilma Soomaaliya tirada inta u badan boqolkiiba 9 maxaa waaye Soomaali. Okay. marka waa la hadli kartaa soo dhawow. هذا ما سنتين أرضي ورما حالدين كورما فصل كصدحات ماتين مقام ماذا برتان إمسام ماذا برتان how many subjects do you learn أفر مادو معي كليين أوكي وما سنتين يا thank you أوكي أدر مقعة مشتاق فصل كتاني Grade 5. Grade 5 فصل شناطة تايميا. أوكي إمسام ماذا برتا؟ How many subjects؟ لح هاي كلين. NST, life skills, English, maths, and SS. هذيك مادة أوجع شيء. English كأوجع شيء. معلمة هذا مقعدة اللي هذا. مقدمة. ما شاء الله. مركز ويناتهم حاجة عشان النقطة. واقعني. حاجة عشان أنا أختار نقطة ما جعش هاي. وحاجة عشان مجد. ها. حاجة عشان. I'm artist. artist أنا نقطة جعشة. ناد واحد صور ثلاث جعشة مية. ها. أوكي هذا ما سنتيا. بقى يمشيك. سلمان ديريه فصل كاتن 5A فصل كشنا هذا تايميا أوكي إمسان مادة برتا لح مادة أو جعشة life skills أوكي معلم كاغا مقعد مديره أوكي إما قاس عساكي ما تسكولك 7:30 I think 7:30 you think سوا مستقبلك مركز ويناتو حاجة عيش أنا نقطة soccer player أوكي برونا يكون في عنده هي صوماليا ولي ما تكتي ولي ما تيجي هي إنا مركز ويناتو إنا دل كاغ وقبضته مجاشة أودن كاغ صومالي كل عبط أوكي هذا ما سنتي فريسو sidoo kaleeta waxaa maanta bilaabanayo imtixaanka qaranka ee dalka Koonfur Afrika ay wada fadhiisanayaan ardayda 12aad run ahaantii iskoolkan oo aan maanta booqday waxa sidaad arkaysaan bagadaasheeda ka muuqdo u diyaar garowga imtixaanka qaranka ee fasalka 12aad oo la yiraahdo matric waxa ila taagan mid kamid ah ardayda u fadhiisan doona imtixaanaadka qaran ee daqiiqadaha soo socda sugayo in warqadihii imtixaanaadka loo keeno waxaan hal iyo laba ka weydiinayaa ardaydaas sida ay isugu diyaar gareeyeen iyo waliba waxyaabaha ay rajeynayaan welcome what's your name Assalamu alaikum. My name is Khadija Chaksi. I'm in grade 12 and I'm writing my English paper 1 today. We have done all of our preparations and now we are about to enter the exam room. So your wish? I wish luck to my classmates and to everyone in the country who is writing right now. You have been in this school since 2019. Since 2019. Yes. And today is your final exam. You're doing your final examination. Yes. So what's your hope? I hope to pass with distinction, inshallah. What message will you send to the other candidates? I wish all the best to all other candidates, and I wish they do their best in their paper. Thank you. In the future, what do you want to be? I want to become a doctor. You want to become a doctor? I wish you success. Thank you. magacayga waa Muno Daahir. maanta waxaan qorayaa imtixaanka oo qaranka waxaan rajeynayaa insha Allah inaan wada baasno ani iyo ardayda dhamaan insha Allah mustaqbalka maxaad jeceshay inaad noqoto waxaan rabaa inaan dhakhtar noqdo mustaqbalka insha Allah ardayda kula qaadanaysa imtixaanka maxaad u rajeynaysaa waxaan wada rajeynayaa dhamaan inay wada baasaan oo natiijo fiican keenaan aad u mahadsantahay guulan ku rajeynaa abtiya shukran abtiya